shacabka ku dhaqan Muqdisho ayaa isweydiinaya halka uu ku dambeeyay ballanqaadkii madaxweynaha ee ahaa inay wadooyinka la xiri doonin xilli maalmaha ciid oo nagu soo fool leh dadku aysan u dukaamaysi tagi karin suuqyada xirnaashaha wadooyinka dartood. Muqdisho ay ku nool yihiin malaayiin qof ayaa baryahan waxaa xirnaa wadooyinka taasoo shacabka ku nool magaalada caqabad ay ku noqotay isku socodkooda. Wadooyinka magaalada waxay xiran yihiin in ku dhow 5 maalin, qasaare xoogan ayayna keeneen xirnaashahoodu. intii wadooyinka ay xirnaayeen waxaa gubtay guryo kuwaasoo saacado badan kadib dadka xaafadda isku gurmaday ay ku guuleysteen dabkaasi demintiisa. Dhowr guri oo ku yaala caasimadda qoysasna ay ku noolaayeen ma aysan mahdeen dhagxaan lagu jaray wadooyinkii laga soo galaya guryahooda. xaafadda Buulixoobey gabi ahaanba waxaa ku wareegsan dhagxaan, guri halkaasi ku yaalana waxa uu gubtay gurmad la'aan sabab la xiriira baabuurta gurmadka oo waayay wadooyinka ay u mari lahaayeen guriga gubanayo oo laamiga aan ka fogeyn. adiga hadda gubtay waa gurigaas waa dabreelay inta xataa gurmadku soo gaarin buu isku dhac. anna kaygana waxa soo gaaray kana sabab ah aniga waxa iga soo gaaray guriga dumay guriga gubtay damiskiisiba aniga guriga ku burbur. haddo alaab ima dhixtaal waa kala baxay waxba ma seexdo asagoo dhan eberkii way darbiga ma aan inta kale waa eber. ugu dambeyn gurmad la'aan dartood ayaga kaliya ayaa gacanta ka geystay dabkiina damiyay, laakiin khasaaraha way jeedaan heerku gaaray oo gurigii uu basbeelay. marka xaafadaha lagu gooyo dhagxaan isku socodkuna uu xayrma magaalada waxa ay noqotaa goob ka caagan gurmadka degdega ah sida baabuurta dabdamiska iyo ambalaasta. marka dab uu ka dhasho guryo la degan yahay waxa ugu weyn oo dadkaasi filan karaan ayaa ah baabuurta dabdamiska, walow iyaga qudhooda ay sheegeen marka wadooyinka la xiro inaysan gurmad la gaari karin halka looga baahan yahay.